shirkadda dekadda berbera maamusha ee DP World ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejisay xukuumadda iyo sidoo kale guddida dhismaha jaamacadda kheyraadka dabiiciga ah iyo sayniska lagu baran doono ee degmada Sheekh shaybaar casriya oo ay hirgelisay shirkadda DP World kaasi oo muddooyinkii u dambeeyay dhismihiisu ka socday xarunta jaamacaddaasi munaasabad lagu qabtay xarunta jaamacadda lagu baran doono kheyraadka dabiiciga ah ee degmada Sheekh ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera iyo sidoo kale maamulka degmada Sheekh gudoomiyaha gobolka Togdheer wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale maariyaha guud ee shirkadda DP World ee Geeska Afrika madax kala duwan oo ka socotay DP World iyo sidoo kale qaar ka mid ah guddida dhismaha jaamacaddaasi iyo waayeel ka socday degmada Sheekh waxa halkaasi ugu horeyn hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada Sheekh Ismaaciil Xabeeb iyo sidoo kale duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan oo soo dhaweeyay dhismahan casriga ah ee ay shirkadda DP World ka hirgelisay jaamacadda degmada Sheekh ee dhismaheedu socdo aan ku faraxsanahay in maanta la daahfuro dhismihii ay dhistay shirkadda DP World oo aad ugu mahadnaqaynaa runtii madaxdeeda iyo mas'uuliyiinteedaba waxaan kaloo aad ugu mahadnaqaynaa guddida jaamacadda Sansat gacanta ku haysa degmadu baahida koobaad ay qabtaa waa jaamacad runtii isbuuc kasta ama bishii baan dhahay qoysasba ka guura DP World aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa DP World ma aha wax qabadkii koobaad ee gobolka Saaxil ka qabatay DP World wax badan bay ka qabataa hore uga qabatay kana qaban doontaa insha Allah DP World waxay inoo kordhisay sumcadeena iyo magaceena bay sare u qaaday dadweynaha gaarsiisay inteenu qeyleeneen ka badan ay qeylisa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Sheekh ku soo noqday back to Sheekh insha Allah billahi kareem DP World waxaan leenahay in badan nafs welcome intana hambalyo laboratory-gan magaciisu waa DP World Laboratory gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salmaan Ramaax iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamed Cabdulle Gaafan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay dhismaha jaamacaddan kheyraadka dabiiciga lagu baran doono iyo kaalinta ay ka qaadatay DP World oo hirgelisay shaybaar casri ah oo ay ardaydu ku samayn doonto cilmi baadhis la xiriidha dhinaca kheyraadka dabiiciga maanta hadduu inoo dhismay dhismahan quruxda badan oo ah faa'iidooyinkii DP World oo aynu rasmi u taabanay iyo waxtarkay dalka iyo dadkaba u leedahay hantida halkaa la geliyey oo ah hanti maguurta ah inay sida ugu fiican u ilaashadaan hantidaasi dalka oo dhan bay u tahay muxuu ahaa waxaynu wada leenahay weeyaan waxaan u salaamayaa ama u mahad celinayaa Subarjaar oo ah mas'uulka ugu sarreeya DP World Subajay maariyaha guud ee shirkadda DP World ee Geeska Afrika oo isaguna halkaasi ka hadlaya sheegeen mashruucani uu qayb ka yahay adeegyada ay shirkadda DP World ugu talagashay horumarinta waxbarashada ee Soomaaliland waxaana uu sheegay in mar walba ay rumaysan tahay in ay dhalinyarada waddanku ay yihiin kuwa wax ka bedeli kara dalka waxa uu sheegay in mashruucani uu qayb ka yahay taageerada aragtida Soomaaliland ee ah in la dhiso jiil aqoon leh xirfad hal abuur isla markaasina dhisi kara mustaqbalka dalkooda waxa uu xusay in mar walba ay DP World barbar taagan tahay shacabka Soomaaliland iyo adeegyada waxbarashada ee Soomaaliland waxa uu sidoo kale Subajay xusay in shirkadda DP World oo maamusha dekadda Berbera ay wax weyn ka bedeshay tan iyo waqtiga ay timi ee sanadkii 2017 oo ay guud ahaan isbedeshay horumarka dekadda Berbera iyo badeecadaha kala duwan ee ka soo dega waxa uu xusay Subajay in mar walba ay diyaar u yihiin horumarinta adeegyada bulshada iyo sidoo kale ka qayb qaadashada adeegyada lagu horumariyo dhinaca waxbarashada dhisidda jiilka cusub iyo sidoo kale wax ka bedelinta dhinaca horumarka dhaqaalaha iyo sidoo kale adeegyada ay u baahan tahay Soomaaliland wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shiro oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in mar walba ay muhiim tahay in laga mahadnaqo waxa wanaagsan ee la qabtay waxa uu mahadnaqay DP World bulshada Soomaaliland waxa uu soo jeediyay inay isu kaashadaan horumarka iyo sidii ay kaalin weyn uga qaadan lahaayeen dhismaha mustaqbalka dhalinyarada iyo jiilka soo socda Jaamac Muuse Jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Soomaaliland isla markaana ka mid ah guddida dhismaha ee jaamacadda culumta dabiiciga ah lagu baran doono ee degmada Sheekh ayaa isaguna dhankiisa khudbad dheer uu halkaasi ka jeediyay bulshada degmada Sheekh u sheegay ahmiyadda ay leedahay waxbarashada iyo kheyraadka dabiiciga waxa uu sidoo kale isaguna u mahadnaqay shirkadda DP World waxa uu xuseen loo baahan yahay in bulshada Sheekh ay aaminto magaaladooda maadaama la hirgeliyay jaamacad ka casrisan jaamacadaha waddanka dhismaha shaybaarkan casriga ah ayaa hirgelisay shirkadda DP World oo muddooyinkii u dambeeyay soo socday ayaa maanta si rasmi ah furihiisa loogu wareejiyay guddida dhismaha ee jaamacadda lagu baran